الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي ولال وإذن سلام يا إلهي وقتينا عمرنا meel kasta iyo waakastaan joognaba allahina barakeeyo allahina xifdiyo ilaahay baana mahad iskale allahumma lakal hamdu wa lakal shukru khayrkan iyo qaniimada nagu kulmiyay mar kale waxay noo soo socotay adkaartii subaxdii iyo adkaartii galabtii caawa waxaynu maarifiqa qaniimaysanayna biidnillahi albaari hada xadiiska lixaad ilaahay adkaarta subaxdii adkaarta galabtii xadiiska lixaad baynu qaadanaynaa ducadii cajiibka ahayd sayidul istighfaar baa inoo kusoo damaysay ducadani waxa weeye iyaduna bismillah allahumma salli ala maxamed allahumma allah yow qofku leeyahay allahumma allah yow inni anigu asbaxtu waan waa bariistay ushhiduka anigoo ku markhaanti gashanaya wa ushhidu markhaanti gashanaya xamalata carshika kuwa carshigaaga xambaarsan malaa'igta khaaska aweeye wa malaa'ikatika iyo malaa'igtaada wa jamiica khalqika iyo khalqigaaga annaka adigu inaad tahay ilaahayo ayaan u markhaanti gashanaya adigana kuu markhaanti gashay intaasoo dhan u markhaanti gashtay annaka adigu inaad tahay anta adigu allahu alle inaad tahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo uusan jirin ilaa anta adiga mooyaane waxdaka inaa keligaa tahay laa shariika lak cibaadadaadana aan lagula wadaagin wa anna muxamadan nebi maxamedna cabduka inuu addoonkaagi yahay wa rasuuluka iyo rasuulkaagi 4 maraatin 4 jeer buu qofku leeyahay subaxdii iyo galabtii gaabtiina sidaanu leeyahay allahumma allah yow inni anigu amsaytu waan galabaystay ushhiduka anigu adiga ku markhaanti gashanaya wa ushhidu markhaanti gashanaya xamalata carshika kuwa carshigaaga xambaarsan wa malaa'ikatika iyo malaa'igtaada wa jamiica khalqika iyo khalqigaaga annaka adigu anta inaad tahay allahu alle laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaa anta adiga mooyaane waxdaka keligaa rabbiyow inaad tahay laa shariika laka cibaadadaadana aan qofna kula wadaagin wa anna muxamadan nebi maxamedna cabduka inuu addoonkaagi yahay iyo wa rasuuluka rasuulkaagi 4 jeer buu qofku akhrisanayaa xadiiskaasi waxaa warinaya anas ibnu maalik radiallahu tacaala canhu ardaa sidoo kaleeto qofkii 4 jeer galabtii iyo subaxdii akhrista isla xadiis waxaa ku yimi iyadana ku sugan xadiis ku sugan in qofkii yiraahda subaxdii iyo galabtii 4 jeer inuu ilaahay naarta ka xoreynayo actaqahu allahu min annaar inuu ilaahay naarta ka xoreynayo xamalada carshiga ilaahay xambaarsan malaa'igta khaaska ana waxa weeye malaa'igta ilaahay kitaabkiisa inoo ku sheegay maaragtay maalinta aakhiro markii la tago qiyaamada inay ilaahay carshigiisa xambaarsan yihiin 8 korkooda ku wadaan 8 maaragtay sida ibnu cabaas yiri radiyallahu ta'ala anhuma warda ma 8 safba ilaahay baa garanaya ciddadooda sidoo kale xasan al-basri alayhi rahmatullahi ta'ala asaguna ilaahay baa garanayo yiri ciddadooda ma 8 laga wadaa yihiin ma 8 kunba ilaahay baa u cilmi rabbi subhanahu wa ta'ala laakiin ducadaas waa qaniimadaas leedahay waxaana soo saaray xadiiskaasi Abu Daawud Bukhari-na Adaab al-Mufrad ku soo saaray ilaahay culimadaas Allah ka noqdo sheekheena waxa xasaniyay sheekheena ibnu Ba'si alayhi rahmatullahi ta'ala ilaahay markaa inuu ku anfaco kuwi ka qaniimaystana Allah ina ka dhigo malaa'igta fadli gaari leeyihiin waa ilaahay khalqi u abuurto weyn ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala hooyo Aisha Allah ka raali noqdo waxa ka sugan xadiis rasuulka alayhi salatu wasallam ay ka warinayso rasuulkeenuna uu yiri malaa'igta waxa laga abuuray nuur ba ilaahay ka abuuray jinnigana naar ba laga abuuray dadkana ilaahay wuxuu uu sifeeyay ayuu aadan ka abuuray oo rabbi kitaabkiisa inoo ku sheegay nabiguna inoo sheegay alayhi salatu wasallam in dhooba laga abuuray khalqiganeeto malaa'igta ana waa maartay tawxiidka inoo ka horeeyeen waa ilaahay fadli gaar ayuu siiyay xadiiska 7 waxa weeye ducada ku sugan qofku wuxuu leeyahay allahumma allah yow ma asbaha bi wixii igu waabariistay oo min nicmati nicma ah aw barwaaqa yani aw bi ahadin ama ahad ku waabariistay min khalqika khalqigaaga kamida faminka adigu ka ahaaday waxdaka kaliga adiga ilaahuna siiyay oo fadligaaga raxmadaada nicmada iyo barwaaqada nagu siiyay la shariika laka wax kula wadaaga male falaka ilaahu waxaad leedahay alxamdu mahadoo dhan adiga iskale walaka waxaa kuu sugnaaday ashukru mahadnaqoo dhanna adigu kuu sugnaaday rabbiyow shukrinaq adigu kuu sugnaaday
qofka markuu galabaystana sidaasoo kale halkaasuu bedelayaa hore wuxuu leeyahay allaahuma allahayow maa amsaa bii wixii igu galabaystay oo min nicmatin barwaaqa ah aw biaxadin ama axad ku galabaystay min khalqika khalqigaaga kamida fa minka adigu ka ahaaday waxdaka keliga laa shariika laka wax kula wadaaga ma leh falaka alxamdu ilaahu mahad adigay kuu sugnaatay walaka shukru shukri naqna adigu kuu sugnaaday. xadiiskaasi waxaa warinaya cabdullaahi ibnu cabdullaahi ibnu qanam ayaa warinaya qanam naam radiallahu tacaala canhu ardaa. sida xadiiskaasi waxaa ku sugan sidoo kale inuu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam qofkii ducada akhrista maalintiisa wuu gutay shukri naqi maalintiisa, hadduu qofku galabtii dhahana shukri naqi habeenkiisa wuu gutay. yani salaad subax kadib iyo salaad casr kadib waa markii la akhrisanayo ducooyinka laga qaniimeysanayo. marka ilaahay rabbi subxaana watacaala hayna ka dhigo kuwa ilaahay ku shukri naqa. ilaahayna fadligiisa iyo raxmadiisa ayuu khayrka ina ku siiyey, wax la wadaagana ma leh, isaga keliya ayaana bixiya nicmooyinka habeen iyo maalin ina ku socda, wax koobi karana male. markaad leedahay laka alxamdu walaka shukru ilaahayow, yani ilaahay carabkaagaad uga mahadinaysaa wax alla wuxuu ku siiyey. maaragtay mahadnaqu waxa weeye, alxamdu waxa weye markaad mahadinaysa ilaahay waa madaxi dhan oo shukri naqa waayo. shukri naqu iyadu ka ahaaday, laana shukri naqu wuxuu ku waajib inaad ilaahay inu ku mahadino rabbi subxaana watacaala waa xaqu inu ku leeyahay, laana ilaahay isagaa yiri washkuruu lii igu shukriya walaa takfuruuna ha igu gaaloobinina rabbi subxaana walaa takfuruuni ha igu gaaloobinina. marka ilaahay rabbi inaynu ku shukri naqno oo wuxuuna sii uga mahadino, haddana waxaynu helaynaa haddaynu ilaahay ku mahadino oo rabbi aynu nicmadiisa waa waajib inaynu uga mahadino. haddaynu ilaahay ku mahadino rabbi subxaana watacaala wuxuu yiri ilaahay lain shakartum la asiidanakum, haddaad igu mahadisaan waa idin siyaadinaya. marka qofku markuu shukri naqo mahadnaqu maaragtay markaad mahadiso waa ra-sigii madaxii dhan weeye, meeshii dhan u madaxda ahayd weeye maaragtay mahadnaqii iyo shukriguna wuxuu kuu sababaya kuu keenaya in ilaahay barwaaqadii waxaad haysatay ilaahay uu kuu siyaadiyo. marka ilaahayna waafajiyo rabbi subxaana watacaala jala fi culaa jala jalaalu jala fi culaa jala jalaalu. ducada sideedaad iyadana waxa weeye wuxuu qofku leeyahay allaahuma allahayow caafini iyo caafi fii badani jirkayga, allahu ii bogsii oo ii caafi. maxaa inoo ka baahi badan? allaahuma allahayow caafini iyo caafi fii samci maqalkayga, allaahuma allahayow caafini iyo caafi ii bogsii fii basari aragayga, laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo ma jiro ilaa anta adiga mooyaane. allaahuma allahayow inii anigu acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alkufri gaalnimo iyo walfaqri faqri baan kaa magangelayaa faqiirnimo, wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min cadaabi alqabri cadaabta qabrigan kaa magangelayaa min cadaabi alqabri cadaabta qabrigan kaa magangelayaa. laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo ma jiro ilaa anta adiga mooyaane 3 maraatin 3 jeer ayuu qofku akhrisanaya subaxdii iyo galabtii. allaahuma allahayow caafini iyo caafi fii badani jirkayga, ilaahu ii bogsii wax kasta oo dhiba xanuun iyo dhibaatooyin oo dhan ilaahu jirkayga iiga badbaadi weeye. allaahuma allahayow caafini iyo caafi fii samci maqalkayga, ilaahu maqalkayga aan wixii xalaalo oo bannaan aan ku maqla, waa caafimaad arrintaaso. allaahuma allahayow caafini iyo caafi fii basari aragayga, oo aragayga wixii xalaala aan ku fiiriya aan ku arka. laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo ma jiro ilaa anta adiga mooyaane. allaahuma allahayow inii anigu acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alkufri gaalnimo iyo walfaqri faqiirnimo, waacuudu bika waxaan kaa magangelayaa min cadaabi alqabri cadaabta qabriga, laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo ma jiro ilaa anta adiga mooyaane. 3 jeer buu qofku akhrisanayaa. ilaahay marka rabbi subxaana xadiiskaasna nufeyc ibn xaarith ayaa warinaya radiallahu tacaala canhu arda saxaabiga jaliilka ah. ilaahay inuu jirkaagii kaaga nabadgeliyo masaa'ibta iyo aafaadka iyo xanuunada jira waa waxa aynu raadinayna intaa ilaahayna siiyo. ilaahay inuu maqalkaaga iyo aragaagana ilaahay maaragtay inaad kuu nabadgeliyo oo kuu caafiyo. jirkaaga labada xubin oo araga iyo maqalka waa labada xubin oo hadday khayr iyo wanaag arkaanna qalbigii bay u gudbinayaan, indhuhu waxay qaataan qalbigii u gudbiyaan. arag wuxuu arko asaguna maaragtay maqalka dhaguhu waxay maqlaan qalbigii u gudbinayaan, arag wuxuu arkana qalbigii u gudbinaya. soo ma
araggii iyo maqalkii labaduba qalbigii u gudbinayaan wixii oo dhan. markay u gudbiyaan haddii wanaag aad aragtay, wanaag aad maqashay, wanaag aad qaadatay, qalbigii wuu wanaagsanaanaya, jirkii wuu wanaagsanaanaya, waxa qalbiga galayana waa wax wanaagsan. haddii laakiin qofku uu waxun ku fiiriyo oo cudur iyo aafo ay ku dhacdo, indhihiisa waxun ay arkaan oo dhagihiisa waxun maqlaan, qalbigiiba cudurka u gudbinaya, qalbigiiba waxaasu galayaan, kadibna dee wuu xumaanaya, jirkiisi waa fasahaadaya. marka hadduu qalbigu fiicnaadana siduu rasuulka inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam, jirkoo dhan baa fiicnaanaya. haddii qalbigaas uu xumaadana, cadka hilibka halkaa ku jira, hadduu wanaagsanaadana jirkii oo dhan baa fiicnaanaya, khayr iyo barakaad helaysa. hadduu xumaadana dee jirkii oo dhan baa fasahaadaya. marka inaynu weligan fiirino waxaynu fiirinayno iyo waxaynu maqlayno, laana ducadaasu muhiim jiddan waaye. waa waxaynu raadinayna caafimaad inagoo dhan korkeenay oo dhan. labada xubnood waxaa loo xusay muhiimada ay qofka u leeyihiin iyo wasiilada iyo dariiqa ay ku leeyihiin qalbiga. marka inaynu ilaashano wey. ilaahay khayrka inoo muujiya, khayrkana hayna maqashiiyo. xadiiskaasayto maaragtay saxaabiga jaliilka warinaya, ilaahayna hayna ku anfaco. xadiiska 9aad waxa weeye isagana wuxuu qofku leeyahay xasbiya allahu, waxa igu filan ilaahay, laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane, calayhi ilaahay korkiisaan tawakaltu tala saarto aan taladeyda u dhiibta, isagaan ku tiirsanahay waay. wahuwa isaguna rabulcarshi, waa rabbiga carshiga iska laha, alcadiimi carshiga weyn. 7 maraad 7 jeer buu qofka akrinaya. xasbiya allahu, ilaahay baa igu filan, laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane, calayhi korkiisaana tawakaltu tala saartay, wahuwa allana rabulcarshi alcadiim, waa rabbigii iska lahaa carshiga weyn. makhluuqa alla abuurtay yaa ugu weyn, carshiga ugu weyn. ilaahay baa iskale, ilaahay baa abuurtay, ilaahay baa rabbi u ah. 7 jeer buu qofka akrinaya. saxaabigii jaliilka baa warinaya, abu darda radiallahu tacaala canhu ardaa. sidaasoo kale xadiiska waxaa ku yimi iyadana inuu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam, qofkii subaxdii iyo galabtii akhrisa ducada 7 jeer, ilaahay baa kaga filaanaya wax alla wixii murginaya adduun iyo aakhiraba. marka aan ka qaniimaysano adduun iyo aakhiraba wixii ina murugelinaya, ilaahay baa shay kasta, wax kasta, ilaahay baa ina kaga filaanaya, ilaahay baa umuuraheena khayr inoo ku dhamaynaya. qofku markuu leeyahay ilaahay baa xasbiya allahu, markuu leeyahay ilaahay baa igu filan waay, wax kastaba allah igaga filan, waxa kastaba ilaahay inuu qofku dhib. nabigeena calayhi salaatu wasalaam maaragtay rasuulkeena maalintii isagii saxaabadii ridwaanullahi calayhim ajmaciin la yiri, dadkii baa idiin kulmay, dadkii ayaa idiin soo kulmay, maxay arrintaasi u siyaadisay? iimaan bay u siyaadisay. maxay dhaheen? xasbuna allah wa nicma alwakiil bay dhaheen. ilaahay waxay noo tilmaamay inay iimaan ay halkaa ka kororsadeen. allahu akbar. ilaahayna uu maaragtay kaafiyey rabbi subxaana watacaala. sidoo kale aabahe nebi ibraahim calayhi salaam, asagana maalintii naarta lagu tuurayo ugu darayd arrintii u haysatay, waa isagii xataa isagoo lagu sii tuurayo dabkii la shiday oo la rabay in lagu tuuro halkaa lagu gubo, isagoo hawada sii maray, malaka jibriil ba calayhi salaam wuxuu ku yiraahday maxaan kuu qabtaa ibraahimo? markaasuu yiri anigoo adiga waxba kaama rabe, ilaahay waa ii jeedaa rabbigaygi, xasbiya allah wa nicma alwakiil buu yiri maalinta isaguna. taasaa layna ka rabaa dhib markuu ku haysto, arrin markay ku haysato, warkeenna waa inuu noqdo sida ambiyadaasi ita rasuulkeena uu kamid yahay calayhi salaatu wasalaam ay dhaheen calayhim wasalaam ajmaciin, xasbiya allah wa nicma alwakiil, xasbuna allah wa nicma alwakiil. aan ka faa'iidaysano, calayhi tawakaltu. markaad leedahay ilaahay baan tiirkiisa ayaan cuskaday, rabbi baan maaragtay cuskaday weye. ilaahayna waafajiyo, allahna inoo ku naxariisto, allah inoo ku dambi dhaafo, kuwii ka qaniimaystana allah ina ka dhigo. maaragtay hamigeena adduun iyo aakhiro waxayna murugelinayana ilaahay wuu inoo ka filaana, isagaa inoo dhamaynaya umuuraheena khayr inoo ku dhamaynaya. runtii waa tawxiidkii waya. ducooyina kulli waxay matalayeen tawxiidkii baa lagu cusboonaynaya, maaragtay inaynu ka faa'iidaysano. goostameedka maxay noo ka baahi badan? naftayda iyo tiina akhwaatii, waalid la walaalle, naftayda iyo tiinaba cabsida ilaah, naftayda iyo tiinaba cabsida ilaah u dardaarmaya. adduunya qaymo male, adduunyadan waa ka tegaynaa. digriga ilaahay allah inoo ku nooleeyo, allah inoo ku naxariisto, allah inoo ku dambi dhaafo, allah inoo ku asturo. kuwa ilaahay xusa oo daakiriin allaha kathiiran wadaakiraad uu ilaahay sheegay, yaa ayuha aladiina aamanuu idkuru llaha dikran kathiira, kuwa ilaahay yiri uu ina amray, kuwii alliya rasuul rumeeyow yaa
ilaahay xusid badan kuwa allah ina ku daro. subxaan allah walxamdulilah walaa ilaaha illa allah wallahu akbar. goostameedka aan gashano, aan ku qabsano, guryaha kaga shaqaysano, arrimaheena ku qabsano. ilaahay waa inoo ku naxariisanaya rabbi subxaana watacaala. yaa dembiga rasuulka calayhi salaatu wuxuu yiri qofkii dikriga afka gashta subxaan allah walxamdulilah walaa ilaaha illa allah wallahu akbar, maaragtay ilaahay rasuulku wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam sida caleenta looga hoobiyo, maaragtay geedka caleenta looga hoobiyo, laanta caleenta looga jafo, sidaasoo kale inuu dembiga uga hoobanayo. maaragtay afarta kale markay afkaaga kasoo baxaan isla markiiba carshu raxmaan bay aadayaan, ayagoo codkaagii ku dhawaaqay ay sida ugu wareegeysanayaan, ayagoo maaragtay magacaagii baan dhihi lahaa, iyagoo magacaagii ku dhawaaqaya, ku xusaya, ku sheegaya. bal alla agtiisa lagugu xusa ka waran carshigii ilaahay ay sidaa ugu wareeg sidii shinnada codkeedoo kale ay bixinayaanoo magacaaga xusayaan. maaragtay ajarka iyo khayrka ka waran, ilaahay baa kugu jeclaanaya. beerihii jannadaad ku beeranaysaa siduu nabigeenu inoo sheegay calayhi salaatu aabaheen ibraahimna inoo dardaarmay. marka aan ka faa'iidaysano walaalayaal, aan ku noolaano dikriga ilaahay. shar iyo shaydaanna xirsi xir ayuu inoo ka noqonayaa. ilaahayna waa inoo umuuraheena khayr qalbigeena ku xasilaya, nimco iyo barwaaqo mid adduun iyo mid aakhiro ayaynu ka helaynaa. warsan iyo wax khayr iyo warbarako ayaynu isku maqlaynaa. ilaahayna rabbi subxaana watacaala kuwii ka qaniimaysta allahayna ka dhiga, waana hadalkii alla ugu jeclaa. yaa allah akbar. nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam waxaa adduunka saaran uu ka doortay. ilaahay waalidkeena iyo culimadeena iyo muslimiinta iyo muuminiinta intayna ka hormartay allah u naxariisto, inta iyo ehelkeeno dhan inta inoo noolna allah inoo xifdiyo, inoo dhowro. shar iyo shaydaan allah inoo ka xijaabo dhammaanteenba. muraadadeena aan macsilayna allah ina siiyo. warsan iyo wax khayr iyo warbarakana allah inoo soo yeeriyo rabbi subxaana watacaala jalla fi culaa jalla jalaaluh. wixii khayran ku hadlay fa min allahi subxaana watacaala, wixii aan geefin naftayda iyo shaydaan ayay ka aadeen. ilaahayna dembi dhaaf ayaan weydiisanayaa. alla iyo rasuulna beri bay ka yihiin. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi iddiin. subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.